toonta iyo caanaha la isku qaso iyo mucjisooyinka caafimaad ee ka buuxa subxaan allah. iyadoo toonta lagu tiriyo inay ka buuxaan maadooyin aad u cajiib badan caafimaadkana waxtar badan u leh marka sida saxda loo isticmaalo, ayaa haddana marka la isku qaso toon iyo caano waxay leeyihiin mucjisooyin caafimaad oo aan tiro lahayn oo qayb ka mid ah aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena. xanuunada lagu daweeyo oo aad u tiro badanna waxaynu ku soo koobaynaa 10 xanuun oo kala ah hargabka iyo qabowga jirka gala, xiiqda, finanka ka soo baxa wajiga, dhimista miisaanka, fangaska ku dhaca maqaarka, sanbab xanuunka gaar ahaan carruurta, hagaajinta iyo wanaajinta dheefshiidka, xididka dumarka, kolestaroolka oo uu xadkiisa caadiga ah ku soo celiyo, iyo dhiigga guntama. dhiigga jirka ee guntama ama xididada dhiigga uu fadhiisto oo uu hagaajiyo sidoodii normalka ahayd uu ku soo celiyo. qaabka loo isticmaalayaana waxa weeye 3 jeex oo yaryar oo toona maaha jeex, waa jeexa qayb ka simid ah. 3 jeex oo yaryar oo toona ayaa waxa lagu shiidayaa koobka arkaysaan ee caanaha. marka lagu shiido ee waxoogaa ay ku shiidnaato ayaa la cabayaa. waxa la cabayaa galabtii iyo subaxdii xilliga cuntada ka hor. ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama. wajazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.